tayagleelista maamul u gaar ah gobolada waqooyi bari Soomaaliya oo curatay 7 go ka hor ambaqaadkii dhismaha dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxaa gundhig u ahaa shirka qabsoomay magaalada Garowe bishii Juunyo ee sanadkii 1991 ayna yeesheen xubno ka tirsan madaxdii ururka SSDF iyo qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanku markii wadankii burburay oo dawladna waayay oo dawladda dhex wadan ka dhacday oo isku yaac dhacay yagleel dawladeed baa lagu dhaqaaqay dadkii markaa wax aqli qabay oo wax garanayay dad dawlad la'aan noolaan kara dadku ma dad madan iyo reer magaala oo soo jireen dhaqan leh buu ahaa arintaas iyada ah marka waxa la waradii Soomaaliya heshiin weeyday war inagu armayno horta maamul dhisanayo inagu horta aynu mataqaana ismaamulaa isla aragtidaas waxaa mar kale lagu aayiday shirweynihii beelaha hartiga halku dhigiisu ahaa nabad iyo nolol kana qabsoomay toga darele ee magaalada Garowe 28kii bishii 12aad ee sanadkii 1993 guddoonka yeergada shirkaasi waxa xilligaasi si wada jir ah ay ugu riyaaqeen hirgelinta ismaamul hoosaad u gaara gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya ilaahi noo yasiray ilaahi fursad dahabiga nasiiyay ayaan u mahadnaqaynaa waa mid loo baahnaa xagga yani masaalixdeeda ahliga ah oo hartinimo iyo mid Soomaaliyeed iyo mid Islaamka horaantii 1998 xilligaas oo dalku marxalad aad u adag ku jiray laguna guuldaraystay kamira dhalinta afar shirweyne dib u heshiisiineed oo Soomaalida loo qabtay gaar ahaan shirkii ka dhacay magaalada dalxiiseedka Soodhere ee dalka Itoobiya intii u dhaxaysay November 1996 ilaa Janaayo 1997 iyo shirkii Qaahira oo isna ku taariikhaysnaa 22 December 1997 waxaa mar kale dib u soo laba kaclaysay aragtidii ahayd hirgelinta maamul u gaar ah oo ay yeeshaan gobolada waqooyi bari Soomaaliya bulshadii Puntland deganeed waxay ku tashtay marka in ay dhisato maamul maartay laba wala joodana kow inaanu kala nabad gallo oo mar dambe aan dagaal shaqeeyo dalkan ka dhicin inaan ka shaqeyno in maadaama dawladda dhexe Soomaaliyeed ay burburtay loogu qareemo dawlad Soomaaliyeed oo dib loo yegleelo oo ay Puntland u noqoto udub dhaxad 18 ilaa 20 bishii Janaayo 98 waxaa kulan masiiri ah degmada Boosaaso ku yeeshay madaxdii maamulka gobolka bari ee ururka SSDF si looga tashado wixii laga yeeli lahaa go'aamada ka soo baxay shirkii Qaahira iyo baaqashadii madashii dib u heshiisiinta qaran ee Soomaaliyeed taas oo loo madlanaa in September 1 sanadkii 1997 ay ka qabsoonto degmada Boosaaso ee xarunta gobolka bari isla kulanka Boosaaso waxaa lagu go'aamiyay in la qabto shir wada tashi oo ay dadka reer Puntland ayahooda uga arrinsanayaan maadaama laga rajo dhigay nayaayiradii laga qabay dib u heshiisiin waarta iyo qaran Soomaaliyeed oo dib u hana qaada markaa kadib ayaa fikradan u timi daweedna shirka waxaa ka soo baxay fikrada in maamulada la ballaariyo oo Puntland la dhiso oo magaca halka laga dhawaaqay aqoonyahanka siyaasiyiinta haweenka Puntland dhammaan dadka waxay go'aansadeen in marxaladda lagu jiro lagaga bixi karo nidaam iyo kala dambeyn in la helo marka waxaa la go'aansaday in wax badiil ah oo maadaama rajo dawladnimo ay naga go'day bedeli kara oo dadka awoodiisa ilaa heer tuulo ilaa heer gobol midayn kara soona celin kara adeegyadii muxuu maqnaa in la helo waana sababta keentay in Puntland loo dhiso shirkii wada tashi oo ahaa wajiga koowaad ee shirweynihii dhidibada loogu taagay dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ee loo garanoga shirweynihii dastuurka waqooyi bari waxa uu ka qabsoomay xerada 54 ee Garowe muddadii u hatada dhig
wejiga labaad ee shirweynihii dhismaha puntland oo islaan maxamed islaan muuse uu shir guddoominayey wuxuu 15 May 1998 ka furmay isla xerada ciidamada ee 54aad shirkaas oo qaatay 69 maalmood waxaa ka qayb galay dhinacyadii siyaasadda 26 ka mid ahaa isimadii soo jireenka ahaa ee puntland culimaaudiin aqoon-yahan iyo ergooyin ay wadartoodu gaaraysay 469 xubnood markii hore madmadow oo iska jiray madmadow seebay noogu suurtagelaysaa oo iska jirtay siyaasiyiintii meesha yimid oo fikro kala duwan watay caqabad kale ay ahayd dabadeedna dee rag waad garanaysaa meel isugu yimi oo akfaartoodu kala duwan tahay hadday rabto oo gacan shisheeye ku jirto oo tarabalku waa badnaa cabdullaahina maadaama uu soo halgamay isaga iyo raggii la socdana ay soo halgameen qaarna ku leeday waxay lahaayeen haddii annaga halgankaan hogaaminaynay annaga hadda marka xaq u leh dadku fikro kala duwan baa la qabay qolaba meel bay ka eegaysay dadka qaar bayna u cuntamaynin in dawlad la dhiso caqabado badan baa ka hor yimid muddo sanad ku dhow yaa loo fadhiyey oo intaa maalinba xarig la furahayay dad baa rabay in la ballaariyo oo puntland inta dadka isku haybta ay degaan laga dhigo dad baa rabay in la koobo qolaba sibay u arkaysay markii horeeto SSDF oo gobolada waqooyi bari la baxay baa muxuu ahaay damcaynay shirkaa samaystaan shirkii waxaa ka soo baxay dood ka bacdi war innaga keliya wax ma dhisan karno oo dadku waxay inoo arkayaan hal reer markaasaa waxaa ku soo biiray walaalahooda sool iyo sanaag iyo buuhoodle kulligii meeshii waa la isugu yimid annagoo midaysan baanu shirkaa ka wada qayb gallay waa la isku raacay saame qaybsi baa dhacay waxaa lagu heshiiyey maamulkii in la dhiso awoodana la qaybsado waana dad walaalaah oo moogtahay yacni isku isirahoo muxuu ahaayey wada degaanahoo dhib badani kama uusan imanin in muxuu ahaay fikraddaas la qaato oo la hirgeliyo waxaa la dhaqaajiyey in la sameeyo dastuurkii ay ku shaqayn lahayd kaasoo loo saaray guddigaas waxaa ka mid ahaa cabdiqawi yuusuf hadda maxkamadda adduunka jooga heyg waxaa ka mid ahaa cabdulaahi muuse yuusuf kinkongi waxaa ka mid ahaa xasan abshir waxaa ka mid ahaa cabdicasiis nuur xirsi daraafkaasoo laysku raacay oo ilaa muddo ahaa 3 sano daraafka constitutionka oo puntland markaa daraaf buu ahaa kadibna constitution baa loo bedelay axdigii ugu horreeyey ee ku-meel gaarka ahaa waxaa ergooyinka shirku ay meel mariyeen 30kii bishii Juunyo 1998 kadib muddo door ah oo lagu muransanaa qaar ka mid ah qodobada axdiga gaar ahaana kuwa khuseeya saami qaybsiga kuraasta baarlamanka iyo astaynta halka ay noqonayso magaala madaxda puntland waxaa axdiga lagu meelmariyey cod aqlabiyad leh iyadoo la adeegsanayo hannaanka gacantaaga ah 359 xubnood oo ka mid ahaa 402 ergey oo maalintaas madasha shirka ku sugnaa ayaa meelmarinta axdiga oggolaaday halka ay 31 ergey diideen 12 kalena ka aamuseen The closing session of the establishment of the state of Puntland, which is going to lead the stone corner of the Somali federal government, and we hope that in this regard Somalia will experience a new era with reconciliation process and peace and stability throughout Somalia. shirku waxa uu si rasmi ah u soo gabagaboobay 23kii bishii Luulyo sanadkii 1998 isla maalintaas oo ay dhacday doorashadii madaxtinimada ugu horeysay Puntland madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenna loo kala doortay Allah u wada naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Cabdi Xaashi مساء أخوك بالله ويقول بالله مساء أخوك الله طائبة الله ترى الحق يا واجباتك الله يساري أنت أول ضيطهي ودنيو kowdii Agoosto 1998 waxay ahayd markii ugu horreysay kadib shirkii aasaaska ee ay kulmaan golayaasha dawladdii cusbayd ee Puntland waana sababta sanad kasta loogu dabaaldego munaasabadda 1 Agoosto taas oo ku aastaysan maalintii u horreysay ee ay dawladnimo ka hana qaaday geyga Puntland
dowladdii curdinka ahayd ee dadka reer puntland dhisteen waxa ay bilowgii horeba la kowsatay caqabado doora kuwaas oo soo shaacbaxay maalmo kadib doorashadii madaxda iyo dhismaha golihii wasiirada ugu horreeyey oo ka koobnaa 9 xubnood. caqabaduhu waxay ka bilowdeen xamaasadda ka bacdi. puntland maalintii la asaasay sawirkii ay lahayd wuxuu ahaa yegleel laga yegleelay meel ebra, meel aan wax haba yaraatee ama hoy dowladeeda ama gaadiida ama dhaqaale ah ana jirin baa dowladdii curatay halkaa laga yegleelay. haddaad fiiriso madaxweynihii marka la doortay allah ilaahay ha barakeeya guriga xasan abshir buu degana madaxtooyin mardamaa abaabulay. ma jirin dowlad ku horreysay markaas puntland oo dhisnayd oo ka jiray deegaanka ma jirin. marka xafiisya ma dhaxleen, muxuu dokumenti iyo tixraac ma dhaxleen, ma jirin muxuu ahaaye marka laga reebo ciidan jabhadeed mooyaane ma jirin ciidan qaran oo markaas jiray oo yacni la wareegi kara adeegyadii bulshada u baahnayd. wax dakhligii ma jirin, wax dadka laga qaado waxaysta maahane dakhli dowladeed oo meel yaalay oo abaabulan oo lagu shaqayn kara lama haysan. waxaan xusuustaa 3 sano u horreeyay baarlamaankii u horreeyay puntland oo 66kii u horreeyay oo gudoomiye uu ka ahaa yuusuf xaaji siciid 8 bilood oo ka mid ah wax mushahara may qaadan. waxaa kale oo adkaa yacni sida isimadii oo powerful ahaa markaas oo muxuu ahaay amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta oo dhan iyaga looga dambeeyey. ayaga laftirkooda si nidaam dawli ah loo waafajin lahaa oo ayagu meesha ka bixinaan markii dowladdu timaado. waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay ahaan caqabadihii markii ugu horreysayba la arkay. puntland oo ah dowladdii ugu horraysay dowladaha xubnaha ka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay tacab hiil iyo hooba leh gelisay sidii uu dalka uga dhaqangeli lahaa hannaanka dowladnimo ee federaalku. soomaaliya dadka reer puntland iyo inay dowlad noqoto sabab u ahaa dhismaha qarannimada soomaaliya. puntland waxay ka geysatay wax aad u mug weyn. ciidan iyo cad soomaaliyada hadda joogta oo quruxda badan oo caalamku taageero waxa dhaliyey ama dhalay puntland marka waxaa la gaaray in shaqaalaheeda ay raashin lacag waayaan oo adeegii bulshada oo dhan la waayo. hadday gaadiid tahay, hadday rag tahay, hadday lacag tahay, lacagta nagaga bixi jirtay bishkii kasta $100,000 baan bixi jirtay. oo ciidankii tagay daraaddeed aagag badan oo maanta puntland laga haysto sida laascaano oo kaleeto ay xilligii dowladda soomaaliyeed puntland ku mashquushay ee la qabsaday. waxaa la oran karaa waxa dhashay soo ititibisay soo bilowday in soomaaliya wada hadasho oo muranto oo dowladnimo ku muranto waxa keentay warqadii halka laga qoray ee dhismihii puntland laga hirgeliyey 1998. marka waxa weeyaan kala guul badan baa nagu dhacay laakiin waxaan ku guuleysanay inaan dowlad soomaaliyeed dhisno waana midda maanta keentay inaan nahno hooyada federaalka. anigu waxaan aaminsanahay wixii aanu xaqa ugu lahayn dowladda federaalka ah kamaana helin, ama fikir ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama ha ahaato qadarin kamaana helin. puntland hooye ahayd. hooyanimada waxaa hadda loogu bedelay adeegto, taasna midaanu ku qanci karo oo qaadan karo maaha. sisteemkii federaalka ahaa oo aanu dhisnay oo gacanta ka geysanay waxay noqotay isagii inuu cadow nagu noqdo mararka qaarkood oo wixii horumar oo aan gaari lahayn oo caalamka ka heli lahayn in ay iyaga ku hakadaan. waa ka xunnahay maanta meesha ay marayso inaan puntland mudnaanta ay lahayd ayan dowladda federaalku miiska soo saarin. aad baan uga xunnahay. laakiin haddana hadda ku quusan mayno, weli waxaanu jecelnahay midnimo soomaaliyeed, midnimo qaran soomaaliyeed, horumar soomaaliyeed. weli inaanu ku hogaamino intii awooddayada ayaanu u dhisana. mabaadi'da saldhigga u ahaa jiritaanka dowladda puntland ee ku xusnaa ararta axdigii kumeelgaarka ahaa waxaa ka mid ah waxaan ku mintidaynaa yagleelidda hannaan cusub oo horseedi kara dowlad soomaaliyeed oo federaal ah kuna dhisan nabad iyo cadaalad. waxaan ogsoonnahay in midnimada soomaaliyeed ay ka dhalan karto hannaan nabadeed iyo is-oggolaansho dadka soomaaliyeed ka dhasha. annagoo ku mintidayna in aan carruurtayada dhaxal siinno nolol nabad cadaalad baraare iyo sugnaansho leh. sidaas darteed waxaan xeersannay axdigan kumeelgaarka ah oo ah ambaqaadkii soomaaliya cusub.
wadajirka wadatashiga jiritaanka iyo horumarka dadka iyo deegaanada Puntland waxaa gundhig u ah talada isimada iyo guurtida gorfaynta waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo go'aanada madaxda xilligaasi talada haysa. Puntland oo u dabaaldegaysa gugeedii 22aad waxay koobta ay maanta taallo u soo gashay hayaan aad u dheer iyada oo soo jiirtay caqabado door ah ka soo adkaatay cadawyo fara badan ka salgaartay himilooyin waaweyn kuna guulaysatay in ay hormuud iyo tusaale fiican u noqoto dib u dhiska qaran Soomaaliyeed oo xooggan udub dhexaadkiisuna uu yahay hannaanka dawladnimo ee federaalka.